السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله، صباح الخير، صباح الفل. قرآنka ilaahay markaad akrinaysaan tadabbur ma ku samaysaan. Maanta waxaa ii soo baxday aayadan ah anoo akrinaya waxaan gaaray aayadan ah ina akramakum cinda allaahi atqaakum. yacnihii waxaan moodaysay inaan weligii akrin tadabburka markaan ku tadabburay oon u fiirsaday oo ku celceliyey yacnihii waxaan ogaaday waxyaalo fara badan baa iiga soo baxay. ina akramakum cinda allaahi atqaakum, kiina idinku sharafta badanna waa maxay? waa kiina allah subxaana watacaala cabsida ugu lakacabsiga ugu dhow, lakacabsiga ugu badan leh. waxaan xasuustay qof taajir ah ee waxaad arkaysaa aan akhlaaqadba lahayn oo kibirsan, oon salaad tukanaynin, oo ilaah ka baqanaynin, oo caytamaya, oo wuxuu doono samaynaya, oo haddana allah subxaana watacaala u nimceeyey oo taajir ka dhigay. fuqaradii iyo masaakiintiina aanu maxay toolay dibirsanayn oo u naxariisanaynin. waxaad arkaysaa mid qabiil le reer hebel baan ahayo raandheeraan ahayo waan ku faanaya. maxaad ku faana? akhlaaqadba ma haysatid, ma tukanaysid, allah kama baqanaysid, waa caytamaysa. yacni eber baad ka tahay akhlaaqada, allah agtiisa waxba kama tihid. waxba qabiil iyo taajir iyo meel sare haddaad haysato waxba kuu tari mayso oonad ahayn qof allah ka baqanaya subxaana watacaala, waxba ma kuu tarayso. ina akramakum cinda allaahi atqaakum. walaa maal baad tirahayn, walaa meesha saread haysataan waxba kuu tirahayn, walaa mansabkaad haysataan waxba kuu tirahayn, waa qabiilkaad tahay waxba kuu tirahayn haddaanad akhlaaqad lahayn. waxaad tahay qof liita, qof liita ayaa tahay adduunka inta joogto, aakhirana aan meel ku lahayn. qur-aanka markaan akhriyayno tadabbur aan ku samayno waxyaalo badan bay noo soo baxaya. qur-aanku waa mucjisaad. ina akramakum cinda allaahi atqaakum. ilaahay haynaga dhigo dad ilaahay ka cabsada oo allah subxaana watacaala u hoggaansan oo akhlaaqad leh. akhlaaqadu waa muhiim. waxaad arkaysaa qof caytamaya, waxaad arkaysaa qofka ceebihiisa sheegaya, waxaad arkaysaa aan af xun lahoo aan weligiiba ku hadlaynin hadal wanaagsan. taasna akhlaaqada xun aad iyo aad bay u xuntahay akhlaaqad markay xun tahay. maalin waxaan la kulmay akhlaaqada wanaagsan baa idinka sheekeynaya islaan meel nadiifinaysaa. waxba iga dhacay soo qabsaan siri isla markiiba oo ii soo qabatay islaanta. markaase weliba iyadoo dhoola cadaynaysa igu tiri allah ku baarika hooyo, allah ku barakeeyo. runtii waan farxay, u qaadan waaye. waxaan idhi maasha allah. islaanta waan wareystay, waxaan ku yidhi hooyo maxaad u faraxsan tahay? shaqadaada ma ku faraxsan tahay? yacni waxay haysay shaqooyinka nadaafadda. haabeen tasanan ugu faraxsanayn. waxaan ahay bay tiri hooyo gabadh anuucada, yacni ilaahay ku qanacsan wuxuu siiyey, bala ugu xamdi noqda 24 saacadood hooyo tusbaxaasaan sitaayo bay tiri afka kama dhigo digriga ilaahay, alla ka cabsiga ilaahayna wuu igu weyn yahay bay tiri. yacni mid kale akhlaaqad hadday tahay inta igu xanaaqday caayi lahayd oo dhan lahayd sidee bad meeshan masaxeeda lagu tuurtaa. marka akhlaaqada wanaagsan wax lagu dhasho weeyaan oo lagu tarbiyad lagu qaato, maaha wax la iska kankeeno. farqi weyn baa u dhexeeya qofka akhlaaqada leh iyo qofka akhlaaqada lahayn. iyadoo dhoola cadaynaysa waxayga ii soo qaaday weliba igu tiri ilaahay ii ducaysay ilaahay ku baariko. akhlaaqada wanaagsan waa caynkaas, iyadoo dhoola cadaynaysa. markaad akhlaaqada wanaagsan leedahay waxaa ka mid ah hadalka wanaagsan, dhoola cadaynta, faraxsanaanta. qofka daciifka waad waxay toole u dhibirsanaanta, u naxariisato, naxariista, hadalka wanaagsan, runta inaad mar walba sheegto, inaad kibir lahayn oo dadka iska kibrinayhaynin, yacni inaad qof samir badan tahay, inaad qof tahay aad u wanaagsan. akhlaaqada wanaagsan waa muhiim. aayaddaas tadabbur aynu ku samayno. haddaad taajir tahay, haddaad qabiil ku faanto, iyo haddaad meel sare mansab sare ku faanayso, aayaddaad tadabbur ku samee. wax badan baa se kaa bedelaya noloshaada. dad kibir badan tahay xitaa
wax badan baa noloshaada iska bedelay. Ina akramakum cinda Allahi atqaakum. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.